laamaha amniga ah ayaanu ka dacwoonay xaqna waanu u leenahay inaanu sifada sharciga marno waanu marnay mudday qaadatay alxaasil gabadhii waa la soo qabtay markii la soo qabtay ee la keenay ee amniga loo keenay ee gelin dama saacaddu ahayd ayaa markiiba waxa nagu soo bilaabmay ergo aan kala joogsi lahayn oo iyagu ay wataan waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa gabadhaas inaad noo sii dayso maxaan idinku sii dayaynaa waxa ka kow ahaa ninka maanta la wax dhacay baa layga iibiyey ee gabadha garab fadhiya oo odaygeegiya in badan ayay ka marweynaynay inaanu ergadaas waa bal aynu xallinna hawshaas waxay go-aan ku gaadheen war wax walay qabtaba gabadha annagaa xallinayna annagaa qaadanayna 10kii habeennimay ahayd way ii yimaadeen waxaan ku yidhi berri toole waagu haynoo baryo inanteennana haddii ay ceebi jirto waynu xallin doonnaa dee soo damiinta caaqil soo damiino waa inanteennii wey waa inantaadii weeye aanu hadda sii dayn maayo laakiin soo damiino inan soo fasax inantii sidii bay igaga tegeen damiinkii baa loo sii daayey war uma hayaanu intaas waa wixii dowladda iyaga ka dhexaysay waxa dhacdan ku waagi helnay markuu waagu bariyey aroornimadii inay dad badan oo kale haddana sidii si limada noogu yimaadeen hawshii waxay daba jeedantaba waxaanu isla tagnay oo ergadii ku gashay waar inanta soo daaya marxaba iyagaa waxay go-aan ku gaadheen oy go'aansadeen oy ku tashadeen iyada iyo ehelkeegii inta qaraabadeedii inay raaligelin buuxda ay ka bixiyaan raaligelin buuxda inay ka bixiyaan iyagaa ku heshiiyey iyagaa qaatay ma ahayn wax annagana khuseeya laakiin annaga waxa waajib nagu ahaa oonu danaynaynay inaanu wixii sharciguna siiyo aanu qaadanno